Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kusoo dhawaada qaybteenii labaad ee cardiovascular drugska oo aynu ku anba qaadi doono ama aynu ku baran doono dawooyinka loo yaqaano angiotensin receptor blockerska dawooyinka loo yaqaano ama ARB. Cashirkani wuxuu noqonayaa cashirkii noogu xigay dawooyinkii hore ee loo yaqaanay angiotensin converting enzyme inhibitors. Salaajligeed waxaanu toos u guda geli doonaa qaybteena labaad ee angiotensin receptor blockers or ARB dawooyinka loo yaqaano. Inta badan dawooyinkan the class member-ka ama xubnaha ka mid ah kooxdan loo yaqaano angiotensin receptor blockerska waa kuwan. Waxaa ka mid ah irbesartan, losartan, valsartan, candesartan iyo kuwo kale oo badan oo ku dhamaada xarafka ugu dambeeya oo ah sartan. Waxay ku dhamaadaan sartan. Markastood aragtid dawooyin la xiriira wadnaha oo magacooda ugu dambeeyo sartan, waxaad ogaataa inay ka tirsan yihiin kooxda loo yaqaano angiotensin receptor blockers or ARB. Indication-ka dawooyinkani muxuu yahay? Dawooyinkan waxyaalaha loo qaato maxaa ka mid ah? Dawooyinkani waa dawooyin la mid ah dawooyinkii hore ee angiotensin receptor or angiotensin converting enzyme inhibitors ee ku dhamaan jiray bril sida enalapril, captopril. Dawooyinkaas iyo dawooyinkani waa isku mid guud ahaan isticmaalkooda. Waxaana loo isticmaalaa hypertension-ka, chronic heart failure-ka, wadne xanuunka, post-myocardial infarction xanuunka loo yaqaano, chronic kidney disease progression prevention. Dhammaan xaaladahaas oo dhan baa loo isticmaalaa. Waa kuwo la mid ah xaaladihii hore ama isticmaalka la mid ah kuwii hore ee aan hore usoo baranay. Side effect-ga dawooyinkan ama dhibaatada ay keeni karaan maxay tahay marka la qaato kadib? Dawooyinkani waxay keeni karaan peripheral edema. Peripheral edema in qofka adimuhu bararaan ama gacmaha ama wejiga, weliba wejiga ayaa inta badan ay ku dhacaan edema noocaas ayaa jira ama barar yar oo caynkaas ah. Sidoo kale acute kidney injury inay kelyuhu xanuunaan qofka. Dawooyinkani waxay dhaawac u geysan karaan kelyaha iyaga oo sababaya waxa loo yaqaano albuminuria. Albuminuria waxay ka dhigan tahay borotiin fara badan oo kaadida la socda albuminuria. Marka albumintaasi waa burbur ka yimaada borotiinada ku kaydsan jidhka gaar ahaan kelyaha. Marka xaaladaas bay sababi kartaa. Sidoo kale waxay sababi karaan dawooyinkan dizziness, tawaqaad. Waxay sababi karaan hyperkalemia, macdanta potassium-ta loo yaqaano sidii kuwii hore ee angiotensin converting enzyme inhibitorska ayaa kooxdana ay kor u qaadi kartaa macdanta potassium-ta. Qaabka ay u shaqeeyaan mechanism of action-ka sida ay jidhka uga howlgalaan maxay tahay? Preventive binding of angiotensin 2 to its receptor. Dawooyinkan waxay ka hortagaan angiotensin 2 in uu ku dhago receptor-kiisa ama goobta loogu talagalay. Angiotensin 2 waa maado ku jirta jidhka aadamaha taasoo ka timaada marka dheecaankii angiotensin converting enzyme-ku uu angiotensin 1 u bedelo angiotensin 2. Angiotensin 2-na shaqadiisu waxay tahay inuu ka howlgalo qaybaha kala duwan ee jidhka ah, gaar ahaan inuu sababo vasoconstriction, inuu sababo in kelyuhu ay aldosterone system-ka inay kelyuhu dardar geliyaan. Dhammaan markaa dawooyinkan waxay ka hortagayaan in dheecaankani uu shaqadiisii ka qabto xubnahaas oo uu ku dhago waxa loo yaqaano receptor-ka. Marka then preventive vasoconstriction. Vasoconstriction buu sababa angiotensin 2 waa naga niri. Marka vasoconstriction kuma dhacayo oo xididada dhiigu iskuma ururayaan, iskuma dhawaanayaan. Haddii ay isku dhawaadaan waxaan ognahay blood pressure-ku inuu siyaadayo. Si guud waxaynu ogsoonnahay blood pressure-ka waxyaalaha kor u qaada inay ka mid yihiin 1 sodium-ta ama waxa loo yaqaano saltiga, 2 blood vessels-ka xididada dhiiga oo sameeya constriction. Dhammaantood waa waxyaalo kor u kicin kara blood pressure-ka. Marka angiotensin 2 shaqadiisu waa maxay? Haddii angiotensin 2 jidhka uu ku bato ama uu shaqadiisa qabto waxaa dhacaya vasoconstriction iyo sidoo kale
aldosterone activating vasoconstriction inay xididadu isku yimaadaan dhiigu oo blood pressureka halkaa ku bato ama aldosterone systemka in lasoo sii daayo ama aldosterone dheecaanka aldosterone inay kelidu soo dayso keliduna ay ku dhacdo absorption of sodium underwater which lead increase of the blood volume aldosteronku inuu activate garoobo oo ay lasoo daayo kaasoo ka howlgala keliduna inay dib u qaadato ama ay qashin saari weydo sodiumta iyo biyaha xad dhaafka ah haddii sodiumta iyo biyuhu jidhka ku bataana mugga dhiigga ama blood volume kuu badanaya marka bukaanka aynu daweynayno maadaama hypertension qabo intaasba uma ogolin marka dawooyinka joojiya hawshaas ayaa waxaa loo yaqaanaa angiotensin receptor blockers dawooyinkani si lamida kuwii hore waxaa laga mamnuucay pregnancy womanka haweeneyda uurka leh waa laga mamnuucay interaction dawooyinkani dawooyinka aanan lala qaadan karin si guud waxaad ogaanaysaa in hal class ama hal koox oo dawooyin ah ama ACEI ha noqdaan ama ARB ha noqdaan koox keliya lagama wada qaadan karo laba dawo isla hal waqti tusaale ahaan enalapril iyo sidoo kale captopril bukaanku ma wada qaadan karo saa laaligeed guud ahaan dawooyinka oo dhani waa ay ka siman yihiin arrinka dawooyinkan ARB-ga lalama qaadan karo dawooyinkan angiotensin converting enzyme inhibitorska iyo dawooyinka potassium sparing diureticska potassium sparing diureticsku waa kaadibadiyaasha kordhiya macdanta potassiumta ee tusaale ay u tahay dawada loo yaqaano spironolactone dawooyinkan ACEI-ga iyo ARB-ga iyo sidoo kale potassium sparing diureticska midba midda kale lalama qaadan karo totally maadaama ay sababayaan toxicity iyo riskiga hypotensionku inuu kor u kaco sidoo kale hyperkalemia ama kelidu inay kor u qaado potassium levelka taasoo keeni karta keliya xanuun guud ahaan waxaynu baranay dawooyinka ARB-ga ee ay ka mid ahaayeen valsartan candesartan losartan iyo irbesartan waxayna ku dhammaadaan sartan wixii commenti ah ama su-aal ah ee ku saabsan groupkan hoosta waad noogu reebi kartiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu